burburka diyaaradda la waayay 2013 oo laga lahaa dalka Malaysia ayaa la helay iyadoo waliba qaab dhismeedkeeda aan wax badan iska bedelin. intaan ugu gudagalin sheekadan hadii ay tahay markii kugu horeysay oo aad na soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto amaasan. burburka diyaaradda la waayay sanadkii 2013 ayaa la helay iyadoo waliba duuliyihii diyaaradda oo qolfoof noqday oo si xun ugu dhaxiran yahay qolka duuliyaasha u gaarka ah ee diyaaradda ku dhex yaala. qabowga moolka mugdiga ah ee badda hoosteeda oo 1 mitir ka hooseysa badda dusheeda ayaa koox quusayaal ah waxa ay ka sameynayeen baaritaan iyagoo baaritaankaasi ugu dambeyn ay ku soo ogaadeen in meeshan ay ku jiraan dad la waayay 2013 iyo diyaaraddii ay la socdeen. quusayaashan oo qayb ka ahaa hay'ad cilmi baaris oo badda hoosteeda ka shaqeysa ayaa waxa ay markii hore baadigoobayeen badda hoosteeda nolosha cusub ee laga sameyn karo iyo waliba sifooyinka juqraafiga waxayna markii dambe ku soo daateen godkan oo ay ku jirtay diyaaraddii dhacday 2013 halkaas oo ay ku jirtay muddo 11 sano ah. waxayna baariyaasha sameeyeen markaasi baaritaan cusub oo diyaaraddan lagu baadigoobayo dadkii saarnaa iyo waliba taariikh ahaan diyaaraddan halka ay ka soo dhacday iyo wadanka laga leeyahay. daafurka baaritaankan ayaa waxa markii ugu horeysay sameeyay baare ama qoose lagu magacaabo Jack Harrison kaasi oo arkay markii ugu horeysay biro qarniyaal ka hor lagu aasay dhulka hoose ee badda. markii uu soo dhawaadayna waxa mugdiga ka soo baxday muuqaalka diyaaraddan oo badda hoosteeda ku dhacday 11 sanadood ka hor. diyaaraddan oo ay daxaleeyeen sanado badan oo ay badda hoosteeda ku jirtay ayaa waxa la moodaa in si cajiib ah loo ilaalinayay muddadii 11 sano ahayd ee badda hoosteeda ay ku jirtay. Jack Harrison ayaa waxa uu yiri ma rumaysan kartid waxaan indhahayga ku soo arkay. markii hore waxaan moodayay qayado dhulka lagu aasay qarniyaal ka hor markii aan u soo dhawaaday ayaan ogaaday in ay tahay diyaaradda ku dhacday halkan oo aan ka sameynayay baaritaan ayuu hadalkiisa sii raaciyay. kooxda ayaa markiiba waxay ogeysiiyeen shaqaalahooda taageerida ee dusha sare waxayna markiiba bilaabeen in tixraac lagu sameeyo diyaaraddan aqoonsigeeda oo markii horeba ku jirtay liiska diyaaradaha maqan. isla markiiba waxay cadeeyeen in tani aysan ahayn helitaan caadi ah waxayna diyaaraddan ku raad noqotay diyaaradda 10 sano ka hor la waayay iyadoo aan wax raad ah ka tagin. diyaaraddan oo jahwareer ku abuurtay muddo sanado ah kooxaha ka shaqeeya baaritaanada diyaaradaha la waayay